إلهي بقى مهضله ما أنت إنه مسلمي إنه نسوي معادنا حفلة أنو كده أفرا إنه وجهي كوباد إبلارينتا دكتور بربرا هذول أنا سؤال وياه ضمان ملاحظة هي مرتبة كسوق يبقى شيء شركة قدوميها محكمة السنة مدنياش وزير ده برلمان كيجوتي ده أنت كتشوفته أحزاب تقارن كه قدومياش وده اللي بدو يتشوفان وفتي إثيوبيا كم دي هي اللي بدو وزير أحمد شده يدود ما قبضها وزير الجديد كأه وفتي كسوق دي بي ويل هو قامنا أيوه قدوميها دي بي ويل أحمد سلطان وفتي كينيا كسوق كم تاعي حلبانكا أما إم بيجا أريال أودينغا دبليسي أما إن تي سي أيوه قامنا أو أصحيحين أو سوماليلاند برايم مينستر كي هو جنوب بيساو دمانتين waxaan ku soo dhaweynayaa ka qaybgalka xafladda lagu furayo feeskii koobaad ee magaalada Berbera maanta waxa maalin weyn oo taariikhi ah oo u ah dadka Soomaaliland iyo geeska Afrika iyadoo aynu goobjoog ka nahay furitaanka ballaaran ee lagu casriyay dekadii Berbera oo ay maalgelisay shirkadda DP World ee ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta waxa kale oo suurtagelinaysa arrintaasi ma aha oo kaliya in dekadii la furay ee waxay ka dhigaysaa Soomaaliland dal hogaamiya shaqada dekadaha noqdana goob baayac mushtar oo u dhiganta Singapore ama Dubai mustaqbalka soo socda hawsha inoo qabsoontay waxay kor u sii qaadaysaa horumarka dhaqaalaheena soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo shaqo abuurka dalkeena waxaan uga mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiiratay inay adduunka intaa la geliso dalkeena Soomaaliland iyada oo waqtigaa ay dowlado badan ay ka hor yimaadeen oo duufaano coladeed ku kiciyeen in aan la dhisi karin dekada waxaa si gaar ah ugu mahadnaqayaa Suldaan oo ah maareeyaha dekada DP World oo u dhabaraqayday culays kasta iyo cadaadis kasta oo kaga yimid dowladda jaarnahay si loo joojiyo in la bilaabo dhismaha aad iyo aad baan u mahadnaqayaa Suldaan DP World iyo madaxda dowladda Carabta waxaan u mahadnaqayaa wafdiga Ethiopia ee wasiirada hoggaamiya iyo wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya oo hoggaamiyo oo inoo muujiyay inay yihiin dad ay naga dhaxayso wada shaqayn jaar wanaag isdhexgal iyo inay iskaashadaan mustaqbalka fog inta aynu ku umanahay labadan dal ee Ilaahay walaaliyay waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan macaamiisha dekada Berbera kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba mahadnaqa kadib inaga reer Soomaaliland maanta waa inoo farxad oo waxaan furay dekadii waxaase ayna furay culays badan oo ah inaynu u adeegno dalalka aan lahayn dekadaha ee u baahan in dekada isticmaalaan ee ugu soo horeeyo dowladda deegaanka Soomaaliya iyo Ethiopia oo dhan iyo inta ka shaqeysa xilkaasi waxay nooga baahan yihiin mas'uuliyad culus oo ugu horeysa soo dhaweyn ilbaxnimo shaqo fiican waayo noloshu waa tartan dekeduhuna way tartamayaan dekeda waxa qulay hirgelaysaa marka la helo deked waqtiga ugu yar kaga dejin karta marabka ee geyn karta halka looga baahaa waa ta koowaad mirka qaaliya marka dekeda laga shaqeeyo waxaa loo baahan yahay dad laga macaamili karo oo ilbaxa oo furfuran oo qofka yimaadeen baaxmushka uu ku nasto ee aan ku deeqadan wala laga doonay waxaa laga doonayaa ammaan gaariga halka ka baxay dhexda maraya
haddii uu ku banjaraan ma meel istaago alaabtiisa iyo dadkiisu inay ammaan ahaadaan hadduu sharci shay yaallo oo la yidhaahdo waa dhulkii ammaanka ahaa kartida ahaa ilbaxa ahaa ee wax laga iibsan karayay markaasaynu tartami karnaa xilkaasaa nagada weeyaan Distinguished delegates, ladies and gentlemen, welcome you all. Today we are celebrating another key milestone of Somaliland's progress toward this economical development. As we are integrating Berbera Port Phase 1 expansion and the groundbreaking of Berbera Free Economic Zone. This is a proud and historic moment for all Somaliland people, and their diaspora will be very proud when they see today these events going in Berbera. That has been realizing our vision for a long time. We want to thank and to remember our President Ahmed Silayo, who has innovated that idea, and we are continuing his vision and idea to complete this action. With the expanded port, along with the free economy zone and Berbera corridor, we are now firmly positioned to further develop and grow out our economy throughout and increase trade, attracting foreign investment and local investment. I would like to thank the United Arab Emirates government for their support of Somaliland infrastructure section, ports, airports, and corridor. Somaliland and United Arab Emirates have a good relationship on development and cooperation that we want to further strengthen it. I would also like to thank the Ethiopian delegation for their participating in this historic moment, and that clears us they will be our customers and the customers of Berbera. I would also want to thank for the President of the Somali Regional Government of Ethiopia that he will be the first customer to Berbera, and we are welcoming you for special sanction. I would like to thank all customers of Berbera, the staff of Berbera, and the leaders and authority of Berbera Port. Thank you very much for all.